بسم الله الرحمن الرحيم تاليسكا لامها أبنية هير دقمو إيو ترافيكا لمان إنجينيرada halka maanta taagan waxaan ku salaamayaa salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta oo bishu ay tahay 20kii bishii 9aad 2023 waxaan dhagax dhignay laba aargo oo ay yeelanayso magaalada Kismaayo aargadii hore oo magaalada lagu yaqaanay oo Kismaayo ay caan ku ahayd oo muddadii sanadadan dambe duntay oo hadda dib loo dhisayo iyadoo si casri ah oo qurux badan oo astaantii degmada iyo wixii kale loogu talagalay ay leedahay waa soo dhagax dhignay halkaana waxaan joognaa magaalada galbeedkeedii oo laga dhisayo aargo cusub soonaha shirkadda Haadweyne oo markii ay boorka laga yimaado magaalada laga soo galo iyadana aargo cusub oo casri ah aynu aan ka sameeyno haddii alla idmo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ugu horeeyaan ganacsatada degmada Kismaayo iyo maamulka degmada iyagu hadda fulinaya waan u mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa injineerada dhinacayga taagan oo shaqada gacanta ku haya shaqo fiican oo runtii loo aayo oo dadka reer Kismaayo taariikh wanaagsan u noqota oo jiilasha dambe ay runtii ku faanaan meesha in laga sameeyo waan kalsoonahay farsamadooda iyo shaqadooda waa nima la soo tijaabiyay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa guul dhammaan dadka reer Kismaayoodna waxaan rajaynayaa nabad iyo barwaaqo waxaan kaloo rabaa inaan ku darno waxaan u baahanahay magaaladan shacab iyo maamulba in la sakaashano sameeyno magaalo qurux badan master baleenkii baa la asixiyay si fiican baa magaalada u koraysaa waxaan rabaa wadooyinka hadda laamiga la dhisayo oo dhamaatay gabagabada ah markii intii shaqada dawladda hoose iyo World Bank u dhamaato guryaha laamiga saaran laamiyada cusub iyo kuwii horeba waxaan rabaa inay interlock ama dhagax isgalgala inay saaraan inta iyaga laamiga u dhaxayso qof kasto ganacsada si magaalo qurux badan loo sameeyo